بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقو وعنتر سيد حسين وحان كتسنا حارون دباب في مقالة مقدشة بحنا نسوح ريكتا تلافك شاشة دور تادا كم موضوع وحان كوسو قد جرني برامجكا وهالينا بيج 3 سيرفيس وحان إنو فرن كمبرية aan rabnay inaan ku shaqeyno ah Buff Auditing Farm haddaba maanta cashirkeena waxaan rabnaa inaan uga hadalno wax loo yaqaan chart of accounts intaanan faahfaahin aan ka bixin chart of accounts waxaan rabaa marka hore inaan ku tuso meesha aan ka heli karno liiska akoonada aan rabno in aan ku shaqeyno haddii la yiraahdo si marka aan u aragno akoonadeena waxaan imaanaynaa menu-ga loo yaqaan list anagoo meelo kalena ka heli karno listi marka aan gujino waxaan imaanaynaa wax loo yaqaan chart of accounts wuxuu soo tuurayaa haddaa fiirisid akoonadii meeshaan ku diyaarsanay ayuu soo tuurayaa waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo in markii kambanigan oo ah Buff Auditing Farm-ka profile-kiisa amba aan asaga naftigiisa aan soo abuurayno programka bishtriga gudihiisa aan kusoo sameynaynay in qaybta account samayska aan soo dooranay mid sample ah amba mid ku diyaarsan haddaba kii ku diyaarsanaa ayuu si toos inoogu soo dhigayaa kan ayaa isticmaali doonaa amba akoonadan ayaa waxay noqonaysaa kuwa aan isticmaali doono haddii aan u baahnana wax ka bedel ayaan ku sameynaynaa chart of account af Soomaali waxaan ku dhigi karnaa waa liiska ay ku yaalaan akoonada kala duwan ee shirkadda ay isticmaalayso ay rabto marka in ay ku qorto ama ku diiwaan geliso dhacdooyin kala duwan ee shirkadda ee saameynta ku yeelanayo sida caadiga ah chart of account-ka wuxuu ka kooban yahay laba qaybood markii aan ka hadlayno manualka wax loo yaqaan account number amba account ID ah oo nambarada uu leeyahay akoonada iyo waliba account name amba description wax loo yaqaan oo ah magacyada akoonada laakiin marka computerka aan joogno qayb saddexaad ayaa jirta oo loo yaqaan type oo ah nooca uu yahay account-kaas dabcan qaybta service-ka marka akoonadan sameynaya ayaan si fiican u sharxi doonaa type-ka iyo waxa faa'iidada uu leeyahay markii akoonada la abuurayo qayb kale waxa jira oo ah balance dabcan waxay noqonaysaa marka akoonka haddii lacag ku jirto haddii kale sidaan ku ogaa lahayn haddaba inta waxaa noogu yaalo akoono kala duwan sida caadiga ah akoonada waxaa loo kala qaadaa 5 qaybood amba major classification-ka lagu sameeyo akoonada 5 ayay noqonayaan amba category-gooda qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa assets ayaa loo yaqaanaa waa hantida shirkadda ay leedahay qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa liabilities oo ah deymaha shirkadda lagu leeyahay qaybta saddexaad waxaa loo yaqaanaa equity amba capital amba owners equity amba marka qaarkood waxaa loo yaqaanaa owners contribution waxa la hayo oo ah maalgelinta qofka shirkadda iskale uu sameeyay iyo akoonadii lama taana ahay oo la diyaarinayo qaybta afraad wuxuu noqonayaa qaybaha lagu soo bandhiga dakhliga shirkadda soo galaya qaybta shanaadna waxay noqonaysaa qaybta lagu soo bandhigayo cost-ka amba wax loo yaqaano direct cost amba sida tooska qarashaadka uga baxaya shirkadda iyo waliba expense-yada shirkadda ay galayso marka qaarkood 5 iyo 6 ayaa lagu soo bandhigi karaa ilaa 7 marka qaarkoodna 5 ayaa lagu soo bandhigi karaa haddaba shantaas qaybood oo waaweyn oo akoonada loo kala saarayo ayaa waxay noqonaysaa marka shanta qaybood ee hoos imaanaya ayaga sida caadiga ah shantaas qaybood asset liability equity review expense account maahan oo wax lagu qorayo laakiin waa classification waa categories waa qaybaha loo kala saarayo waay sida caadiga waxaa hoos imaanaya marka akoonno caadi ah sida cash checking account account receivable ayaa hoos imaanaya akoonnadaas ayaa wuxuu noqonayaa marka dhacdooyinka akoonada ay saameynayeen isla markaasna riboorada kala duwan amba ha ahaado balance sheet-ka amba income statement-iga amba cash flow statement-iga aan ku arki doono haddii ilaahay yiraahdo dhacdo walba oo dhacdo waxa saameyn ay ku yeelanayso marka akoonadan waxay noqonaysaa marka akoonada shaqada waa kuwa aan ku shaqeynayno akoonada waaweyn amba categories-kana wuxuu noqonayaa qaybaha loo kala saarayo akoonada ay ku aftirsanayaan haddii aan rabno marka chart of account-kan in aan daabacno si caadi print ayaan ugu dhifan karnaa marka qaarkood waxaa suurtagal marka inaad rabto excel-ka inaad u dirtid sida caadiga ah waxaa ku dhifanaysaa marka amarka loo yaqaan send to waxaa taabanaysaa excel wuxuu soo tuurayaa marka in aad u baahan tahay warqad cusub amba excel cusub inaad kicisid oo warqad cusub aad geysid akoonadan iyo inaad mid hore oo jira aad ku dartid dabcan warqad cusub ayaan geenaynaa qaybtahan hoose waxba kama bedelayno okay ayaan taabanaynaa waxaan siinaynaa marka waqti yar oo uu ku geenayo
daatada amba akoonada meeshan ku yaal si toos excelka u geenayo inta marka wuxuu keenay excelka ayuu si toos u keenay magaca uu bixiyo amba sheetka magaca uu bixiyo account list ayaa loo yaqaan waana chart of account-ka magacyadii amba title-ka ayuu noqonayaa qaybta sare qaybta hoose hadaa fiirisidna wuxuu noqonayaa akoonadii haddaba akoonada waxay noqonaysaa marka haddii la yiraahdo akoonada aan u isticmaali doono in aan dhacdooyinka aan marino haddii la yiraahdo sida caadiga waxaa isticmaalayaa Excel 2016 waana versionka hadda ugu dambeeya oo la isticmaalo Excelka barashadiisa inta programkan aan dhigayo wax badan ugama soo qaadi doono haddii la yiraahdo laakiin waxa ogaataa dhacdo walbo amba wax walbo aan programkan bistriga aan ku qorno in aan sidoo kale warbixin ahaan aan u diri karno Excelka halkaas oo aad ku sameey kartid wax loo yaqaano falanqeyn dheeraad ah amba analysis Excelka sida caadiga programka gaar ah ayaan ka diyaariyay kuwaasna waxa ka heli doontaa haddii la yiraahdo qaybahooda kala duwan amba website-ka qaybihiisa kala duwan ayaa ka heli doontaa sida Excel accounting-ka Excel basic iyo advanced Excel class Excelka aad ayuu muhiim u yahay markii laga hadlayo xisaabaadka iyo waxyaalaha kala duwan marka qaybahaas ayaa ka heli doontaa haddii la yiraahdo maanta insha Allah taala intaas ayaan ku hakinayna cashirkeena inta cashir lamid aan ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh